maxkamadda ayaa waxa ay xukun dil toogasho ah ay ku xukuntay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kaas oo ku eedeysnaa inuu geystay fal kufsi ah. dable xooga dalka Maxamed Xuseen Cilmi ayaa loo xiray kufsi uu geystay dhibanad Farxiye Cabdi Shakuur Bootaan oo 4 jir ahayd 14 bishii May ee sanadkan. kufsigaas oo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Maxamed Xuseen Cilmi ayaa lagu soo wareejiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana xabsiga dhexe loo taxaabay muddo kadib si loo hubiyo jiritaanka dambiga ee la xiriira ee uu ugu xirnaa hay'adda dambi baarista booliiska ICID-da. xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa baaritaano kadib horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana xilligaasi loo sii gudbiyay isla markaana la soo bandhigay qiraalo ka dhashay horgeenista maxkamadda. Maxamed Xuseen Cilmi ayaa maxkamadda ciidamada ay mudeysay in la dhageysto dacwadda ka dhanka ah bilowgii September waxaana dhageysiga kama dambaysta ah ee maxkamadda la soo gabagabeeyay 14 bishii ilaatay September. intii ay socotay maxkamadeenta Maxamed Xuseen Cilmi ayaa la dhageystay baarihii kiiskan sidoo kale maxkamadda ayaa la wadaagay waraaqada cadeynaya saameynta dhibanaha gaaray. eedeysnaha oo isna kamid ah dadka fursadda loo siiyay fadhiga maxkamadeed ayaa mar kale ka jawaabay in uu isaga uu qaadanayo mas'uuliyadda dhibka dhacay laakiin uusan ka jawaabi karin sababta ku kaliftay in uu kufsado gabadhan oo ay ahaayeen daris. waxa uu intaas ku daray in xilli dambe arintan marka ay dhacday ay dib kala xumaatay. Min Xuseen Cabdullaahi xeer ilaaliye ku-xigeenka guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda weydiistay in fariintan ay uga dhiganto xukunkeeda in fal dambe oo kufsi ah uusan ku fikirin qof kamid ah ciidamada qalabka sida. qareenada u doodayay eedeysanahan ayaa ku dacwooday in loo qaban qiraalka eedeysanaha xukunka ahaa bedelkeedana ay codsanayaan in maxkamadda ay sii deyso oo ay kulan macaamiil ah oo ehelada dhibanaha ah la siiyo. gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa la tashiyo iyo fadhiga maxkamadeed kadib ku riday xukun dil toogasho maanta sida uu la wadaagay dhinacyada dacwadda ay u dhaxaysay. xukun sane Maxamed Xuseen Cilmi oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan.